magaalada Port Elizabeth waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horeeyay ee Soomaalidu degto wuxuu yar kadib markii uu dhamaaday nidaamkii midabta koorka sanadkii 1994 bilowgii hore Soomaalida waxay ku bilaawatay ganacsiyo wareednimo iyo waliba wareejinta alaabaha iyo inay u shaqeeyaan ganacsiyada ay leeyihiin hunuudda Islaamka balse Soomaalida oo la sheego inay fahmad badan yihiin ayaa sameystay ganacsiyo u gaar ah waxaana la sheegay in magaaladan ay ahayd magaaladii ugu horeysay ee inta la og yahay nin Soomaali ah oo dukaan macdaar ah ka furta meel tuulo ah isla markaana uu halkaasi ku soo dhaweeyay boqolaal kale oo Soomaali ah oo ganacsiyo xooggan ku leh dalka Koonfur Afrika rabshadii ugu horeeyay dukaamo lagu boobo waxay dhaceen magaaladani 12 September 2001 xilligaasi oo 100 dukaan cagta la mariyay tuulada Motherwell ku taala magaalada Port Elizabeth magaaladani waa tan ugu muhiimsan gobolka Eastern Cape inkastoo ay magaalo madax ahayn waxaana ka soo jeeda laba madaxweyne oo hore u soo maray dalka Koonfur Afrika oo kala ah Nelson Mandela iyo Thabo Mbeki xilligii midabta koorka waxa halkan ka jiray gaar ahaan dhulka miyiga ee maamul hoosaad ay leeyihiin qoomiyadda qowsaha ee lagu magacaabay jiray Transgai walina waxa ka dambeeyay raadad maamulkaasi ay madax ka ahaayeen hogaamiyaasha dhaqanka kuwaas oo door maamul ku leh dastuurka haatan dalka Koonfur Afrika lagu dhaqo dhibaatooyinka ugu weyn ee Soomaalida Koonfur Afrika loo geysto halkani ayay ka dhaceen sida hooyo Soomaaliyeed iyo 3 caruur ay dhashay oo faash lagu dilay sanadkii 2008 magaalada Queenstown oo aan wax badan ka fogeyn magaalada Port Elizabeth iyo waliba gabadhii xaamilada ahayd ee sanad ka hor la kufsaday lana dilay waxaana ugu dambeeyay wiilkii dhagax lagu dilay oo lagu magacaabay jiray Cabdinaasir Good kaasi oo si weyn ugu xanaaqeen Soomaalida adduunka dacaladiisa ku kala nool kuwaas oo mudaharaad xooggan ka hor dhigay safaarada Koonfur Afrika ee ku leedahay dalalka caalamka waxa magaaladan u badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo shaqeysta kuwaas oo badankood bilal u dira qoysas Soomaaliyeed isla markaana noqday hormuudka jiilka Soomaalida soo koraysa haddaba waa kan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo la hadlay TV-ga caalamiga Universal oo booqday magaalada Port Elizabeth wallahi hadda isbedelada aad u fiican dhalinyarada si fiican ay u shaqeystaan marka problema ka tagan dagaal iyo waxas leema ahanaysa shaqadu way kala socotaa hadda waxa inta badan waxay qabataa dukaamada ka shaqeeyaan locationada ka shaqeeyaan marka maalin habeen busy waa shaqeystaan dhalinyarada si fiican ay u shaqeystaan waa wax badan ay kala duwan yihiin marka shaqadana adag tan Soomaali hadda wax oo shaqo saas ah lagu shaqeynaa dhalinyarada ku shaqeynayaan aan ogaan mala laakiin tan waa dukaamada ku shaqeystaan marka tan adag shaqada tan si kastaba ha ahaatee magaaladani Port Elizabeth ayaa Soomaalida Koonfur Afrika ay ku xasuustaan waxyaabo aad u fara badan iyadoo magaaladani ay tahay magaaladii ugu horeysay ee Soomaalida Koonfur Afrika ay soo degto isla markaana waxa ay ku xasuustaan dhacdadii xanuunka badneed taasi oo ahayd in lagu gooracay halkani hooyo Soomaaliyeed oo 3 caruur ah wadata iyo in lagu gooracay gabar Soomaaliyeed taasi oo markii dambe la daldalay lana kufsaday sidoo kale magaaladani waxa ay ku caan baxday dilalka Soomaalida loo geysto iyadoo dhacdadii ugu dambeysay ee Soomaalida ka mudaharaadeen oo dhagax lagu dilay Cabdinaasir Good oo ka mid ahaa Soomaalida Koonfur Afrika ku sugan khaasatan magaaladani Port Elizabeth Maxamed Musannuur Daqdarajo Universal TV Port Elizabeth